warsan iyo warsan isoo warsan iyo warsan isoo warsan iyo warsan بسم الله الرحمن الرحيم وطهي وحنا فضلنا وزير كلمة الدبلة أحمد الرئيس الصومالية مروة فوزية حاجي هذا مدن وزير وحنا مختارين النقطة فايسين سفر المجال ده رئيس مدن وزير بارتقاء ثاني صوت بسم الله الرحمن الرحيم وحنا نقول مرتقى بنا لمرتقى ولا مرتقى بل إن لا شيء كريستولا لا يروح لو حنا لقبل كرو وحنا لقنا من حوينها ورك وحنا كلا أشتن كاترين أشتن وقابل سنوات بريطة إن شاء الله بريطة وحنا أركينا تطبيق اللواتن تولدود وسير الفارجياشونا قلبت مدحوين بروسا مساقنا أركينا مع دخلنا كمشنكا كوحد مدعين أهدي أدوات إنساني سومالي سيدا مكلاكو لأنه سفر ردي إنجليز كتلياني كامريكا يكون قبل كمان أرياد بلوسو دويني يا سوماليا وحسدي وحلولا قبل لها سيدي وحوين ميلوين لو قارسين لها حق النبتقلية حق النقالها حق تعليمتها حق عافماتك marka waxaad naloogu yeeray in lagala tashado shirarka la qaban doono ee ku saabsan sidii waxaas oo dhan wax looga qaban lahaa kunsiya nadamaadsan kadib markii aad tagteen dalka Mareykanka oo dowladda Mareykanka ay ku dhawaaqday soo dowladda Soomaaliya ay la shaqeynayso safaradii Maxamed ay iska soo dhacayaan marka ma loo arki karaa in xiriirka internationalka ee adduunka kale inay wax iska bedeleen wax weyn baa isbedelay dowladdan ma sha Allah waa dowlad rasmiya oo aan meel gaar ahayn oo la sugayay 22 sanadood Mareykanka waxaa ka sii horeeyay baa Yurub waxaa iyadoo region oo madaxweyne ku soo wareegay aad baa loo soo dhaweynaya waa la ictiraafay Mareykanka waa laga ictiraafay institutions the World Bank IMF كل كروس ودنا واعترافين مثل يوروبا ونما يدنا اعترافين ما تري بريتو عن والله marka ma sha Allah aad baa horumar weyn baa la gaaray Soomaalina waxaan bal dhamaantiin hambaliyo waayo waa waxaynu gaarnay heer aynaan gaarin muddo aad iyo aad dheer dadka Soomaaliyeedna han weyn iyo hope rajo weyn bay qabaan dawladuna waxay committed ku tahay ama ka go'an inay dadka waxay jecel yihiin iyo sida magaranaysa sugayaan loo gaarsiiyo sida ugu xasan Sofia hal waxa jirta maalmahan dowladda Ingiriiska waxay ku dhawaaqday in security data wadada dalkooda bakayadkooda dhasho waddanka Britain inay kala baxayaan Soomaaliland marka intaasna waxay gobolka Soomaaliland Ingiriiska maaragtay doodooda marka si aragta tilaabadaas ay qaadeen dowladda Ingiriiska wallahi lama socdo waan aqriyay kaliya wax sababay dowladda Ingiriiska baa og kala socdaan ma jiro sida uu aragteen baa la qabaa waxaan rabaa su'aasha aan ku weydiinayo waxaan ka soo gashay magaalada Addis Ababa waxyaalaha laga hadlo waxaa kamid ah Soomaaliya isbedelka dhinaca ammaanka marka dimuqraadiyadda iyo nabadda iyo dowladnimada ay ka samaysan waxa kale oo la isweydiinaya waxaa kamid ah ciidamada Soomaaliya weli maysan gaarin awood ay kula wareegaan ammaanka guud ee waddanka Soomaaliya welina waxaa loo baahan yahay AMISOM inay sii joogto madowga Yurub waa maanta aad u shirsantihiin maalmahan la samaysan waxay kamid yihiin wadamada bixiya lacagaha ciidamada Soomaaliya joogay AMISOM arrimahaas maxaad ugu ka gaarteen maxaad hadda isleeyihiin ciidamada in waqtiga loo kordhiyo waqtigooda kale waxaa la soconaa AMISOM inuu afar bil loogu daray hadda ay sii socotay dhammaan rabto qorshahaas maxaad ka wadaan oo rabtaan inaad gaartaan go'aan AMISOM waxaa weeye ciidan abaal badan loo hayo oo dalalkii keenay ciidamada AMISOM ka midka oo ay ka mid yihiin Kenya ay ka mid yihiin Uganda ay ka mid tahay Burundi ay ka mid yihiin Nigeria iyo Ethiopia oo iyagu mandate ka haysanin oo iyagu ku jooga inaga codsigeena intaasba aad iyo aad u mahadsan yihiin dad badan baa kaga dhintay dhiigooda ku wayaan dhulkeena inay nala xoreeyaan horta abaal baa loo hayaa xagga inay waxa laga yeelay waa loo baahan yahay weli ciidamadeena ma hagaagin ciidan aad badan baa jooga oo kala daadsan oo Soomaaliyeed oo trained laakiin waqtiga la isu geynayo waqtiga la isku soo xirxinayo waqtiga command midaysan loo sameeyo waqti qaadanaysa marka heshiis waxa lagu yahay
inay joogaan yurubna inay dhaqaalaha sii wado inta ciidankeena sida ugu dhaqsaha badanna waa lagu dadaalaya uu kacayo oo waddanka baddiisa xeebihiisa iyo gudihiisa iyo xuduudihiisaba uu ilaalin doono iyo nabadgelyada arrinta oo hadda maraykanka markaydan aqoonsadeen oo kala safaaradu hadda Soomaaliya ka hortagaysa ilaaniga almost waxay soo magacaabeen safiir oo Soomaaliya jooga sidoo kale Ingiriiska mar dhow waa sida aan suuqyada inuu soo magacaabo safiiradii ay yimaadaan gudaha amaankiina weli ciidamadii Soomaaliya weli si dhaba lama wareegi karaan amisom waxay u baahan tahay kharash badan arrinta amaanka maxaad u sheegi kartaa beesha caalamka iyo Soomaalida si dhiiranaan ay u yeeshaan oo gudaha u imaadaan imika bas safaarado badan baa ka furan qaar badan baa la dhisaya tii Turkiga la dhisaya tii Ingiriiska la dhisaya tii Mareykanka la dhisaya tii Abu Dhabi baa la dhisaya safaarado badanna way joogaan horena weligood u joogay Suudaaniya ka mid yihiin marka cabsi xamar haysaa ma jirto qaraxa ka dhac magaalooyinka oo adduunka oo ka dhacaa qarax marka mar iyo laba iyo saddex qaraxyo dhaca wax weyn ma yeelayso nabadgelyada safaaraduhu way imanayaan kuwa badan baa soo socda wixii UN-ta ka joogay Nairobi way soo guurayaan nabadgelyada waddanku waa marka gobolada qaar laga reebo way sugan tahay marka amisom waa loo baahan yahay waqtigan abaalna waa loo hayaa waana sii joogayaan inta laga maarmayo waxaase lagu dadaalayaan ciidamadii Soomaaliyeed oo shirkan imika Turkiga ka dhacay kuwa hadda Nairobi aanu ku soo galnay kuwa hadda maanta aanu u joogno kuwa Ingiriiska ka dhici doona kullu waxa laga hadlayaa sidii nabadgelyada waddanka loo sugi lahaa dadka Soomaaliyeedna iyo ciidamadooda ugu masal lahaayeen waa tahay waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya isla markaasna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Fawziya Xaaji Aadan oo noogu warramaysay xarunta Brussels ee magaalada Belgium warsan iyo warsan